وفدي ودري وزيرka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koor oo hogaaminaya xildhibaan Hanad Xaashi Axmed iyo Mujaahid Faansiya ayaa gaaray dooxooyinka Gambadho ku habsaday ayaxaad u tiro badan waxaana goobta ayaa ka kicinay ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaankaasi waxaana wararka ka warbixiyay Taliye Maxamuud Boodho oo ciidamada goobtaasi ku sugnaa waxa halkan ku fadhiistay wax la yiraahdo ayax oo looran karo waa masiibooyinka ka mid yihiin waxaan saakan ku soo bilownay xasaas هون حوي ديانكيو كعي حول دقتدي وحوي عيدان كقرنكو oo ka hawlgalay hadeer waxaan soo gaaray waftu soo diray wasiirka warfaafintu waan soo gaaray iyaga indhahooda ku soo arkay hawlgalka meesha ka socda iyo waxa weeye meesha jooga waxaan hadalka soo afmeeray xildhibaan Hanad iyo Mujaahid Faansiya oo kamid ah waftiga wasiirka waxa halkan ku habsaday ayax koronkorra waxa la oran karaa waa masiibo qaran waa wax ka tan weyn deegaanka oo dhan waxaan aad baa u diranaa xukuumadda madaxweynaha golayaasha qaranka kulli waxaan leenahay waxay u baahan yihiin masiibo qaran in loo kala hadin wasiirka beeraha gaar ahaan wasiirka deegaanka iyo durjoogta Suuqi Baandare waan halka ka salaamano waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay in arrinta hadii la isu kaashado